warbaahinada caalamka ayaa aad u hadalhaya sheekada Ashraful Hussein Alam oo ku magac dheer Hero Alam kaasi oo la sheegay in boolisku ay xireen kadib markii ay sheegeen inuusan lahayn hibafan isla markaana uu aad u foolxun yahay. ninkan oo u dhashay Bangladesh ayay boolisku ku qabsadeen heesaha uu qaado iyo nooca uu qaado si la yaab leh sida ay warbaahintu u hadalhayso. oo ku andacooday in boolisku ay u sheegeen inuu yahay nin foolxun isla markaana aan u qalmin inuu heesa qaado. warbaahinada caalamka ayaa la yaab ku tilmaamay in boolisku ay ku mashquulaan qof caan ah kaasi oo leh mareeg baraha bulshada isla markaana ay muuqaaladiisa daawadaan malaayiin qofood kuwa oo jecel daawashada muuqaaladiisa. dad badan oo Soomaali ah ayaa warbixintan ka falceliyay waxaana kommentiyadoodii kamid ahaa booliska Soomaaliya hanaga bareejeeyaan kuwan codka xun ha soo xiraan. cadaaladda Soomaaliya ayaa u baahan dad badan oo fanka kufsaday ayaa la soo qaban lahaa. hayay faladegan iyo socdaal booliis kuwa Soomaaliya jooga u baahan in la xiro nagasti socdaal iyo faladegan ka dhiga booliis dad ugu dulqaad badan caalamka inaan nahay hana loo qiro war socdaal u sheergareeya si uu isaga daayo heesaha uu qaadayo. annaka Sharma Boy iyo socdaal ayaa kufsaday cid ka celinaysana ma lahan war annagana socdaal yaa naga xir talow socdaal toogasho miyay ku xukumi lahaayeen. waxaas waa qalad 100%. waa qaar ka mid ah falcelinta ay ka bixiyeen dadka Soomaaliyeed. adiguna waxaad ka dhihi lahayd commentiga ku soo qor. ku maasantahay daawashada muuqaalkan channelka subscribe saar mahadsan. তুমি বাংলাদেশি বই আমি ইন্ডিয়ান ম্যান সারা দুনিয়া এখন তোমার আমার ফ্যান বাবু খাইছো কাঁচা বাদাম বাবু খাইছো কাঁচা বাদাম তুমি বাংলাদেশি বয় তুমি ইন্ডিয়ান ম্যান সারা দুনিয়া এখন তোমার আমার ফ্যান বাবু ফ্যান বাবু ফ্যান বাবু ফ্যান বাবু ফ্যান বাবু ফ্যান